السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa farxad weyn ii amaanta iyo maamuus in aan xilka si rasmi ah ugu wareejiyo madaxweynaha la doortay ee Puntland mudane Siciid Cabdullaahi Deni. waxaana ku wareejinayaa dhismayaasha madaxtooyooyinka ee magaalada Garowe, Gaalkacyo, Boosaaso iyo Qardho. xarunta taliska ciidamada madaxtooyada oo dhismo gaar ah, ciidamada dawladda oo kala ah daraawiishta, booliiska, asluubta, nabad sugidda iyo ciidanka badda. waxaan sidoo kale madaxweynaha ku wareejinayaa mashaariicda hadda dawladdu gacanta ku hayso oo kala ah dekedda Boosaaso oo si cadriya loo dhisayo, waddada Ceeldaahir iyo Ceergaabo, waddada Dangoroyo iyo Eyl, dekedda Garacad, waddada Garowe iyo Gaalkacyo, eeraboorka Gaalkacyood, mashruuca biyo macaaninta Boosaaso, waddada Sheerbi iyo Xingalool loo dhaafdhigay, iyo hoolka shirarka madaxtooyada oo gabagaba maraya. waxaan rabaa sidoo kale halkan aan ku xuso mashaariicda hirgashay 2014-2019 ee xarumaha dawladda ah oon jecelahay madaxweynaha inaanu ku wareejino. waxa weeye dhismaha cusub ee wasaaradda maaliyadda, wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska, dhismaha wasaaradda arrimaha gudaha, dhismaha wasaaradda xanaanada xoolaha Garowe, dhismaha wasaaradda dekedda iyo gaadiidka badda ee Boosaaso, laanta socdaalka iyo jinsiyadaha Garowe, iyo dhismaha xarunta naafada. waa example waxyaabaha rabna inaanu ku wareejino ee cusbaa aanu rabna in madaxweynuhu uu si rasmi ah ula wareego. ugu dambeyntii waxaan dhammaan hay-adaha dawladda iyo saraakiisha ciidamada si xusmad leh uga codsanayaa in ay la shaqeeyaan madaxweynaha cusub. waxaan kaloo ka codsanayaa dadweynaha reer Puntland in madaxweynaha la siiyo waqti, la garab galo, loona duceeyo. madaxweynaha waxaan rab uga baryayaa inuu u fududeeyo hawsha baaxadda leh ee sugaysa. waxaan u caddaynayaa madaxweynaha inaan diyaar u ahay wixii talo iyo tabar ah ee uu iiga baahdo. waxaan u rajaynayaa shacweynaha reer Puntland horumar, baraare iyo nabad waarta. ugu dambayn waxaan cafis weydiisanayaa shacabka reer Puntland, qof kasta oo Soomaali ah oo iga tirsanaya gaf iyo xumaan intii aan xukunka 5 sano aan hayay dawladda Puntland. dalabka cafiskaasi waa niyad ah, niyaddayda si hugmaysa u raxaysa. marka cafiskaas ayaan ka codsanaya dadka dadweynaha reer Puntland meel kasta ay joogaan. sidoo kale waxaan leeyahay dee afallah camaa salafta away cafa leeyahay masaabax dadweynaha reer Puntland meel kasta aad joogtaanba madaxweyne soo dhow. بسم الله الرحمن الرحيم. مدحوينه محمد عبد الولي محمد علي قاس، مدحوينيه هوري عبد الحكيم عمر عمي. waxaa sharaf weyn ii ah maanta inaan halka kala wareegno xilkii 5 sano ay soo hayeen. waana aaminsanahay maalintii lagu wareejiyay meeshii loogu dhiibay inay hore uga sii qaadeen, sida ka muuqata warbixinta mashaariicda qabtoontay iyo kuwa hadda socdaba. waxaan annaguna ballan qaadaynaa haddii ilaahay idmo inaan meeshaas ka sii qaadno oo meel ka sii durugsan geyno. sida dabeecadda caadiga ah, dawladdu waa qoriisku dhiib. maalin walba qofka jooga meel buu ugu imaan, meelna waa gaarsiin. waxaan uga mahadcelinayaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka muddadaa 5 sano ah ay xilka u hayeen ummadda Puntland. wax badan oo lagu xuso oo waaweyn ayay qabteen. waxaana aniga oo ka mid ah shacabka reer Puntland magacoodana ku hadli kara madaxweynaha u rajaynaynaa in wixii gafee ka dhacay ilaahay ka cafiyo, sida uu shacabka reer Puntland uga codsadayna ay u cafiyaan. waa muwaadin Soomaaliyeed oo xilal badan dalka ka soo qabtay. waa asad dadka reer Puntland leeyihiin, horena ugu baahnaayeen, haddana ugu baahnaan doonaan. waxaan rajaynayaa inaan si dhow u wada shaqayn doonno madaxdii hore, khibradooda iyo waayo aragnimadooda ay la garab istaagi doonaan dawladda cusub. wixii tala ah aan uga baahanana siday noo ballan qaadeen aan ka heli doonno. annaguna waxaan caddaynaynaa dhammaan dadka Soomaaliyeed gaar ahaan reer Puntland inaan si dhow ula shaqayn doonno. waxa aanan ka codsanaynaa
wada shaqayn dhinacooda inaan ka helno waa xil adag waa mas-uuliyad weyn oo dareenkeeda leh laakiin waa mas-uuliyadna sugaysay oo meel looga baxsada aan lahayn ummaddeenna inaan shaqaynaan halka u nimid waana rajaynaynaa inaan mas-uuliyaddaas ka soo baxno wixii nagu adkaadana aan u wada joogno madaxweynaha waxaan kala wareegay si rasmi ah dhammaan dukumeentiyadii iyo qoraalladii ee dawladdu ay ku shaqaynaysay kuwa la ogaa iyo kuwa qarsoon intaba xog maanta puntland ay leedahay oo annaga naga qarsoon ma jirto si rasmi noogu wareejiyey annagana waxaan rajaynaynaa wixii sir dawladeedna inaan xafdinno wixii mashaariica aan hore u sii wadno wixii aan u aragnay in aan wax ka beddelno si ay u qurux badnaato maamulka puntlandna aan ku soo siyaadinno dhammaan bulshada reer puntland waxaan ugu baaqayaa inay midnimada ka shaqeeyaan wadajirka ka shaqeeyaan dawladda shacabka iyo annagoo dhan baa dawladda garab istaago wax wanaagsan oo aan ku faanno in aan ka shaqayna ayaan rajaynaynaa ilaah idankiis madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkana waxaan u rajaynaynaa caafimaad iyo nolol wanaagsan iyo in ay noqdaan dad sharaf iyo karaamo kula agtayada waana runtii ballan bay naga tahay in aan maamuuska ay mudan yihiin mar walba ay naga helaan wada shaqayntuna xilalku in la kala wareejiyey uun weeye lama kala guurin marka waan rajaynayaa in dawladnimada puntland ee gaamurtay la arko miraheeda dhabta ah oo puntland oo nabad ah oo dadka xilka markay ka degaana si nabada ugu noolaadaan waxaan rajaynaynaa in dadka reer puntland ay dalka ku joogaan oo maqnaanshaha dalka annagu joogistiinna uma arkayno culays annaga aana saaraysaan waxaan u aragnaa wanaag iyo odayaal aan la tashan karno dalka jooga meelaha qaarkood culays baa laga dareemi jira laakiin annagu culays uma arkayno inay madaxdii hore nala joogto taladoodaan u baahannahay maxaa yeele waa muwaadiniin khibrad siyaasadeed iyo mid maamul lahaa waxa annagu aan ka shaqaynaynana waa wixii ummaddu lahayd waxaan annagu leenahay kama shaqaysanayno aad baad u mahadsan tihiin waana iniga mahad celinaynaa wakhtiga dhammaan golihii wasiirrada hore iyo shaqaalaha dawladda waxaan kaloo sidoo kale rabaa inaan amro dhammaan oo farayaa ciidamada kala duwan ee puntland in ay ilaaliyaan kala dambaynta iyo nabadgelyada goobahooda ku sugnaadaan heegan u galaan sidii amniga aan khalkhal loo geli lahayn maadaama puntland cadow badan leedahay waxaan sidoo kale maanta rabaa inaan halka caddeeyo ilaahay idankiis markaan dib u fiirinno oo waxa ka khaldan wax ka beddelno dhinaca maaliyadda mushaharooyinka ciidanka iyo shaqaaluhu waa ahmiyadda koowaad waa kharashka ugu horreeya ee ka bixi doona khasnadda dawladda haddii ilaah idmo mushaharooyinku waxaan ballan qaadaynaa in ay sidooda u baxaan oo wax walba aan ka hormarinno annagoo og inuu culaysyo nabadgelyo iyo kuwo dagaal ayna haystaan laakiin haddana waxaan ku dadaali doonnaa inaan bixinno dhammaan xuquuqda dawladda lagu yeelanayo waxaan kaloo bulshada reer puntland ka codsanayaa in canshuurta dawladda la bixiyo si adeegga dawladda looga baahan yahay ay u fuliso dhammaan waxaan rajaynayaa canshuuraha dawladda inay siday tahay u soo xaroodaan waxaan farayaa saraakiisha canshuuraha inay labalaabaan ururinta canshuuraha waxaan kaloo halka ka caddaynaynaa haddii ilaahay idan ka dhigo cid kasta oo ku xadgudubta qaanuunka iyo shuruucda u taalla dalka hadday noqoto mid maaliyadeed iyo mid maamulba tallaabo deg deg aan ka qaadi doonnaa haddii ilaahay idmo cid aan uga haybaysan doonno ilaalinta sharciga ma jiri doono